filimkana maanta waxa uu ku bilaabanaya wiil yariis ah oo la dhahana Bel Norman oo iska soo qorayn iskuul cusub waxaana laga qaadayaa sawirkii laga qaadi jiray ardayda sanad kasto wax uu meeshaas ku arkayna gabar qurxoon oo ay isku yihiin oo la dhahana Ayda waa uu ka jeeso weyn aad ayuu ugu helay laakiin Ayda waxay u dhaqmayeen sida qof isla weyn oo kale Aydana sawirkii ardayda isla wada galeen markii ay qabateen waxa ay bilaabaysaa inay wajiga ay ka tirtirtaan ardayda kale Ayda xisada la joogana macluumaad ayaa waxa ay ka dalbanaysaa ardayda inay laba iskula saaxiibaan si ay waliba ay ugu wada shaqeeyaan assignment Aydana waxa ay dooranaysaa saaxiibadeed oo ka dambeysayna Bel aad ayuu farxay maadaama uu maleynayay in Ayda asaga dooratay laakiin waa uu nijabiya kadib markii uu ogaadeen in saaxiibadeeda uu ka dambeysay asaga inay u yeereysay xilliga bareegana kaligiis ayuu meel fadhiisanaya Bel asagoo waliba cunayna tufaax hal mar waxa uu maqlay qayl markii uu fiirina waxa uu arkay inuu yahay saaxiibkiisa Wel oo isku fasalka yihiin waa ina foodeenayeen maadaama ay ku arkeen waraaqada dadka awoodda leh Belna waxa uu madax ugu dhufanayna tufaaxii uu cunay kadibna waa uu ka cararaya ay kana makaareen waa ina bursanayaan ilaa markii dambe Bel uu awoodayn inuu kaga dhuntana mid kamid ah beeraha ku yaalayna wadada ardaydii foodada badneedna ma awoodayaan inay arkaan kadib markii geedaha uu ugu dhex dhuntay laakiin nasiib daro beertaas waxa ka buuxayna quraansho ka duwan weerariyaasha kale mid kamid ah weerariyaasha ayaan wax uu awooday inuu Bel ka qaniinana qoorta Belna waa uu socod weyn ilaa markii dambe uu suuxay oo ka dhacay istaaga habeenkii ayuu suunaxaya wax uu iimaanaya guriga asagoo waliba aan rabin inuu jifto markii sariirta uu tagana waxa uu ku riyoonayana quraanshooyin saq dhax ayuu soo kacay waliba asagoo ay haysana baahi aad u tiro badan wax dharji ayuu weyna oo aan ka ahayn macaanada ilaa subaxdii ayuu daaqayay ilaa markii dambe qolkiisa oo dhan uu noqdayna qashin subaxdiina markii waalidiintiisa uu la quraaca maagana gacanta ayaa waxa uu dhigaysana kartoonka caanaha waa uu iska fujiwaa ilaa markii dambe aabiisa uu ka fujiyay intaas kadibna koobka caanaha markii uu qabtay gacantiisa ayuu ku jabayaa aabaan wax uu la yaabayna wiilkiisa awoodda meesha uu ka keenay intaas kadibna Bel waa uu baxay wax uu aadaya iskuulka ugu dambeeytina markii uu tagay uu fasalkiisa uu gali maagana albaabka ayaa soo raacayo saaxiibkiis Welna markii uu arkana midaas waa uu naxya mana hadlaayo xiisada kadibna waxa ay aadaya meesha tababarka halkaasna ardaydu waxa ay ku baranayeen qaabka naftooda ay u difaaci lahaayeen ugu dambeeytina doorka Bel ayaa la soo gaaray waxaana la rabay inuu dadka tusana sida naftiisa uu u difaaci karo macallinkana waxa uu fiirinaa inuu casharka si fiican u barto waxa uu bilaabay inuu ku soo ridana gacantiisa awoodda badan Belna waa uu iska difaacay ardaydii oo dhan waa ay yaabayaan intaas kadibna hal mar ay waxa uu ku dhufanaya macallinka caloosha ilaa markii dambe uu ku dhacayna darbiga Belna iskuulka ayuu ka cararaya si aan loo ciqaabin saaxiibkiis Belna waa uu ka dab iimaanaya wax uu weydiinaya wixii dhacay waxa uu ku dhaca anigu waxa kaaga shaksan inay haysatidna awood la yaab leh intaas kadibna waxa uu siinaya boog ay ku qoran yihiin kuwa awoodda badan waxa uu ku dhahay waxa laga yaabaa inay ku anfacdo ay ku wada sheekaysanayeen hal mar Bel waxa uu arkay nin gaari ka soo dejinayeen alaab ninkana waxa uu Bel u soo fiirinayaan si la yaab leh Belna waa uu iska inatray waa uu ka tagayaa meesha ugu dambeeytina Bel iyo saaxiibkiisna waxay awoodeen inay guriga gaaraan halkaasna Wel waxa uu ku arkayna Bel awoodaha uu leeyahay oo ay kamid tahay inuu cuni karana waraaqadaha iyo sidoo kale inuu daaqada ka soo boodi karo waliba ayadoo aysan gaaraynin wax dhaawac ah Belna saaxiibkiis ayuu waxa uu ku dhahay wixii ugu dambeeyay ugu shaqsanayna waa inay qaniintayna quraansho saas darteedna Wel waxa uu bilaabay inuu qadka uu ka raadiyay macluumaad ku saabsan quraanshooyinka ama weerariyaasha ugu dambeeytina waxa uu u sameeyay dhar weerariga u eg habeenkii markii la gaarana waxaan arkaynaa Wel iyo Bel oo joogana garaash hortooda ayaana wax lagu hadayaa Belna waxa uu go'aansanay inuu dhaxgal uu isticmaalana awoodiisa markii tuuga uu tagayna waa uu cabsanay wax uu bilaabay inuu gadaal u socdo asagoo is ogeyn ayuu wax uu bilaabay inuu darbi ugu socdana si la yaab leh tuugan intuu naxay wax uu isweydiinay sidoo cunuga awoodan oo dhan ku helay hal mar Bel ayaa ku soo boday waa uu qabanaya wax uu ku dhahay hadaa is dhaqaajisid waa ku dhameynaya intaas kadibna booliska ayuu ugu yeeray waa uu u dhiibaya booliska markii meesha ka tagayna waxa uu bilaabay Bel inuu awoodiisa markale isticmaal laakiin uu awoodi weyn inuu darbiga uu ku socdo saaxiibkiis Welna waxa uu dareemay sababta uu u daciifay waxa uu ku dhahay waxa u baahan tahay inaa cuntin sokor si aad tamartaada dib ugu soo celisid kadib markii ninka tuuga la qabtayna wiilka quraanshada aad ayuu u sii caabaxay wariyaashu dhan waxa ay bilaabeen inay ka shakeeyaan wax uu noqdayna geesiga dadka badbaadinayo waqti yar ayuu caalamka dhan kaga noqdayna caan kadib markii uu badbaadiyay dad badan aad ayuu u sii tababartay ilaa markii dambe uu awooday inuu hal far uu ku qaadana gaari sidoo kalena waxa uu edbiyay ardayda foodada badan ee iskuulada ardayda ku foodeyso kadib markii caan uu noqdayna dadka jecel waxa ay bilaabeen inay sameeyaan game asaga qaas u ah waxaynu u baxshayna wiilka quraanshada maalmaha kamidana waxaan arkaynaa Ayda oo fadhisana qolkeeda hal mar waa ay naxisa kadib markii aragtayna nin la yaab leh oo gadaasheeda taagan muuqaalkiisana waxa uu ahayn mid cabsi leh waxayna bilaabaysaa inay qayliso si loo badbaadiyo laakiin nasiib dar waa uu afduubanaya qofna ma maqlayso maalinka xig markii la gaarana Bel waxa uu dareemay inaysan eega aysan joogin fasalka xogaa yar kadibna ardayda waxa ay maqlayaan qayl waxa ay iimaanaya banaanka si uu arkaan wax qaylinayo hal mar wixii arka cunug yariis oo iskuulka ka soo dhici rabo Belna si dhaqsi ayuu dharkiisa ku gashana waxa uu bilaabay inuu darbiga fuulo si uu u badbaadiyo cunuga ugu dambeeytina waxa uu arkay inuusan ahayn cunug uu yahayna bombilo waxaa soo dhan sameeyay saaxiibadiisa oo fasalka la dhigato oo la dhahana Amanda waxayna rabtay inay u sheegtay saaxiibadeed Ayda wixii ku dhacay waxayna tusaysaa muuqaalkii uu soo duubayna ninka afduubtay Amanda iyo ardayda kalena maysan u sheegin booliiska maadaama ninka afduubtay uu lahayna awood waxayna rabeen inay Bel u diraan maadaama uu leeyahay isla awoodiisa kale caladuna Bel waxa uu tagay saaxiibkiis Wel waxa uu u sheegay wixii dhacay intaas kadibna waa israaceen Belna waxa uu bilaabay inuu sankiisa uu ku raadiyo kadib markii uu ursadayna katiinadeeda
wax yar kadibna waxa ay gaaraya meeshii ay ku jirtay waxa uu ku dhahay gurigan beertiis ayaana waxa ay u qaniintayna mar quraansho Belna saaxiibadiis ayuu banaanka ugu tagay markii uu galana waxa uu ku arkayna saaxiibadiisa eega oo ku dhex jirtana miraayad markii uu bilaabay inuu la sheekaystana hal mar gadaashiis waxa ka imaanay nin cabsi leh Belna cabsidiisa darteedna waxa uu bilaabay inuu gadaal u socdo ilaa markii dambe uu miraayad ay ku xirantay waxaan ogaanaynaa ninka magaciisa in la dhahana Albert waxa uu bilaabay inuu u sheegana wixii ku dhacay oo dhan waxa uu ku dhahay anigu waxaan ahay dhakhtar sameeyna daawooyinka waxaan u shaqeynaa shirkad weyn eega aabeed ayaana maamulaha shirkad ahay sabab la'aan ayuuna naga soo raacdeeyay anigana waxa u baahnayna baaritaanadii awooday inaan sii wado sidoo kalena hooyadii waa ay jirtay anigana waxa raadinayna daawo ah ku daawi karan cudurkeeda anigana tijaabooyin badan ayaa waxa ku sameeyay quraanshooyinka quraanshada ayaana mal iqaniinta anigana sidaan ayaa ku noqday tijaabooyinkaasna inaan ku guuleysto ku badbaadiyay hooyadii waxa ay diidana eega aabaheeda isla waqtigaasna booliska ayaa waxa ay ku soo heeraarsameen guriga kadib markii ay wargeliyeen ardaydii la socotay waxa ay rabeen inay qabtaan Albert awoodiisa la yaab kale darteedna waxa uu awooday inuu ka dhunto booliskana waxay ka soo saareen dhalada eega iyo Bel waqti uu soconay waxa ay dib ugu soo laabanayaan iskuulka Belna waxa uu ahayn mid ka fikirayna Albert ilaa markii dambena maalmaha kamid ah uu iskuulka soo weeraray Albert waxa uu rabay inuu dilana Bel kadib markii uu hor istaagay inuu ka argoostana eega aabaheeda Welna waxa uu isku dayay inuu badbaadiyay saaxiibkiisa waxa uu doonaya sokor si uu u helana awood laakiin nasibdar Albert waxa uu dafaya Wel waxa uu la aadaya keenta Belna waxa uu bilaabay inuu saaxiibkiisa uu soo badbaadiyo oo uu daba kacaya ugu dambeeytina waxa uu ugu daba tagayana keenta dhexdiisa asagoo ku xirxiran Albert asagana waa ay dagaalayaan ilaa markii dambe uu ka kala jarayna dhiiga xariga maraayay sidaas darteedna Albert waxa uu weynay awoodii uu lahay xogaayir kadibna booliska ayaa meesha imaanaya waxayna qabanayaan Albert sidaas ayna magaalada ugu badbaadayna shartiisa waqti kadibna Bel waxa uu noqdayna qofka ugu awood badan magaalada waxa uu nahayna mid magaalada dadkii ku noolay ka badbaadina tuugada filmkeena waxa uu ku dhamaanay adigoo muuqaalka like saaray oo YouTube-kana khulaasada filmadana subscribe saaray ya Cabdilxaliim Cali oo dhahayna filmka waxa ay qoro oo dhigreeyna Kabtan Maajid waxaan codiyay Cabdilxaliim Cali waana aniga filmkan magaciisa waxa la Anti Boy waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalada xiga maca salaama